kulan wacan daawadayaal halkan waa RTN kusoo dhawaada barnaamijka Maanmiir oo toddobaad waliba xilligan oo kale RTN aad kala socotaan aniga Farxiye Cabdalla Muumina ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya toddobaadkana waxaan ku soo qaadanayaa horumarada ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caqabadaha ay la kulmaan iyo dhibaatooyinka inta badan iyaga soo wajaha sida u jeedaanba waxa toddobaadkan barnaamijka igu martay oo igala qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Nuur Cali oo isagu kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi ee dalkani Kenya muddo soo joogay wax badan kala socda xaaladaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee marka hore ku soo dhaw barnaamijka Maanmiir aad marti ku tahay aad u mahadsantahay Farxiye Muumin oo ku dhawahay waxaan maanta barnaamijka Maanmiir kaga hadlaynaa oo aan diiradda ku saarayna dhibaatooyinka caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi waa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba horumarada inta badan ay sameeyaan marka hore barnaamijka ku soo dhaw ayaan ku leeyahay mar labaad waxaad guud ahaan iiga sheekaysaa xaaladaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi inta aad ka warhayso intii adiga aad soo joogtay haddii aan u kurgalo dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degtay ee Islii waxaad arkaysaa dhalinyarooyinku waxay iskugu jiraan laba qayb labadaas qayb markaan dib u fiiriyay qayb waxaan u daraaseeyay inay yihiin dhalinyaro aanan marxalad la soconin xaaladaha taagan iyo waaqiciga ka jira Islii iyo fursadaha maanta Nairobi ee dalkan Kenya laga helo aanan la soconin ama lumiyo waqtigooda dhalinyarana waxa lagu daraaseyn karaa dhalinyaro la dagaalamaya ama la jihaadaya waaqiciga ka jiro magaalada iyo maxaa la dhahaa isbedelada ka jiro dad la socdo update ah marka labada kala saarno markaan ku hormaro dadka effectiga ay ku tahay ama caqabadaha ay ku tahay oo aanan la soconin waaqiciga jira iyo waxa la jira Islii ku nool waxa kamid ah dhalinyaro waqtigoodii lumay hadii la dhihi lahaa xaqa akhlaaqdooda sumcadooda intaba ma aragtay aanan maantay ahayn kuwa bulshada sumcad xaqooda ku leh ama ka muuqda waxana kamid ah dhalinyaradaas oo lagu yaqaana magac gaar ah oo ay leeyihiin kuwa oo la yiraahdo dhalinyarada super powerka dhalinyarada waxay kamid yihiin dhalinyarada aanan maalintii wax qabsan ee jiifa habeenkiina shaqaysto soo kaca oona isticmaala maandooriyaadka isugu jira sida qaadka waxyaabaha la isku diro waxyaabaha la cabo ee daroogada ay kamid yihiin shiishadaha waxyaabahaas kamid ah waxyaabaha ay isticmaalaan waana dhalinyaro daadooda ay u dhaxayso 13 ilaa 25 ayay isugu jiraan waana dhalinyarada caqabadaha badan maanta haddaad eegto ama la wajahaya ama la darisaya xaaladaha xun ee Islii maanta ay la soo kabsan laadahay ay kamid tahay dhalinyarada ku nool waa tahay waxaad ii sheegtay marka in caqabadaha ugu badan ay tahay marka dhalinyarada aad ii sheegtay maxaa la dhihi karaa way keentay ama way ku qasabtay marka in sida ay noqdaan oo ay noqdaan dhalinyaro marka iyagu dhibaatooyinka geysta ee halka ay Soomaalida ku nooleed dhalinyarada waxay isugu jiraan kuwa aanan waalidkood markaa la noolayn iyo kuwa maxaa la yiraahdaa dhaqan celis halka loo keenay oo waalidkana wali aan la xisaabtamaynin ama aanan la joogin dhalinyarada hadda marka la soo qaato aanan waalidkooda la joogin ee dhaqan celiska loo keenay waa dhalinyaro dhaqankoodii ku soo lumay qurbaha si dhaqanka loogu soo celiyo dibadaha laga keenay Afrika in dhaqankii loogu soo celiyo loogu talagalay haddana marxaladihii waalidka aanan la soconin dhalinyaradu waxa ay ku sugan yihiin kuwaas oo saameyn ku yeelanaysa dhalinyarada wanaagsan ee la jihaadaya noloshooda iyo sumcadooda iyo siday isbedelo uga sameyn lahaayeen Islii sidaas darteed waxaan aasaasnay oo aan sameynay ururkan hadda xogahayaha aan ka ahay xogahayaha labaad ee aan ka ahay Islii Environment oo improvement organization la yiraahdo ururka waxa uga dagaalamayna sida hadda dhalinyarada sida oo kala noqotay ee maandooriyaadka isticmaala dhibaatana gaarsiiya dadkana la degan ee Kenya ku nool iyo Soomaalida dhexdoodaba oo qabtaan marka waxaan ugu talagalnay dhalinyarada inaan wacyigelin ku sameeyno inaan ayagii la hadalno inaan yani aqliyaad iyo sifooyinkii ay ayaga ku dhaqmayeen inaan u tusino inay yihiin marxalad ay ku jiraan marxalad aanan wanaagsanayn si aan ugu bedeli lahayn sumcadda hadda siday nooga dilayaan waayo dhibaatooyinka wax walba markii ay dhacaan waxa la leeyahay Soomaali baa geysatay bulshada kale ee aan la nooshahay maanta waxa arkaysaa dhalinyaro
ku xisaabtamaya halkii ay hiigsan lahaayeen dhalinyaro badan oo waxaa jira oo Kenyana oo halkan ku nool ama halka ku dhashay waxaad arkaysaa cunuga inuu subaxii kacayo salaada subax ku adkeeda inuu isu diyaarinayo inuu iskuul ama jaamacad meeshii uu gali lahaa inuu galo markuu aado markuu ka soo noqdo wuxuu ku xisaabtamayaa inuu shaqeeyo ama uu raadsado shaqooyinka farsamooyinka gacanta la qabto kadibna markuu iskuulka ka soo baxo ama uu dhameeyo wuxuu la daalaa ama fursad ahaan mustaqbal u raadinaya si ugu qayb gali lahaa ururada caalamka maanta international organizationada ee adduunka fursadaha Afrika dhalinyarada siiya sida Yale University oo ayada urur uu asaasay Obama madaxweynihii hore ee Mareykanka ee hadda ka dhacayay ururkaas oo loogu talagalay Young African Leaders Initiative la dhahaa waxaan loogu talagalay siyaasadda dhalinyarada Afrika in lagu soo kobciyo oo ay kaga qayb qaataan sidii ay bari wadanka u xukumi lahaayeen waxaa kaloo jira One Young World urur la yiraahdo xogahayihii sare ee qaramada midoobay asagana uu agaasimay ee la yiraahdo Kofi Annan oo asagana One Young World abuuray fursaduhu way badan yihiin adduun weynaha ay siinayaan haddana gaar ahaan dalkani Kenya waxaad arkaysaa fursado badan bay maanta beesha caalamka siinaysaa taasoo loo arkayo inay tahay dawladaha East Africa ku yaala dawladda ugu horeysa ee marxaladda wanaagsan ku sii sibqaysa ama ku sii dhaqaaqaysa marka dhalinyarada Soomaaliyeed marka fiirisid marxaladahaas oo dhan ma ahan dad la socda waa dad ka indhaxiran kuwa markii laga soo jeesto aanan ahayn superpowerka waxaad arkaysaa dhalinyarada badana inaysan cilmiga iyo aqoonta iyo isdhexgalka bulshadaba inaysan diyaar u ahayn dhalinyarada Soomaaliyeed in yar baa jirto farku tirisa oo ayaga jecel marka inay isbedel sameeyaan ku dadaala sidii ay marxalad wanaagsan kaga geysan lahaayeen bulshadana si fiican ugu dhex milmi lahaayeen kana soo muuqan lahaayeen dalka markaas ay joogaan ama isu daya xataa inay dhisaan ama dhaqdhaqaaq u sameeyaan waxaad ii sheegtay markii aad aragtay idinkoo dhalinyarada markaad aragteen dhibaatooyinka ee haysta dhalinyarada iyo waxyaabaha ay ku dhaqaaqayaan oo naftoodiiba dhibaato u geysanayeen marka ururka aad sameyseen yaa idinku dhaliyay maxaa keenay inaad sameysaan waxaa jirta ninka directorka ka ama ka ururka gudoomiyaha ugu sareeya ka oo la yiraahdo Cabdullaahi Xareed baan is aragnay asagoo ahaa maskaxdii koowaad ninka ay ku dhalatay ee barnaamijkaas keenay markuu barnaamijka keenay kadib uu ila soo xiriiray markaas waxaan u oleynayay Youth Ambassador for Peace sidaan uga qayb qaadan lahaa uu ila soo xiriiray wuxuu yiri maadaama aad tahay nin dhalinyaro oo firfircoon una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada waxaan rabaa inaad qayb naga siiso waqtigaaga oo aad nagu soo biirto ururkan oo aan bilownay inaan diiwaan gelino hawshaana aan ku dhaqaaqno xagga dawladana aan iska soo register-gareynay baan waxaan u baahanahay dhalinyarada ugu firfircoon inaan magaalada ka helno sidaas darteed baan u aqbalay aan uga biiray una jecelnahay hadda isbedel weyn inaan sameeyno oo aan diyaar u nahay waxaad ka soo sheekaysay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo kuwa iyagu ay gacantooda isugu geysteenba markaan ka sheekeyno horumarada ay la dhigi karo way ku tallaabsadeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee sanadihii ugu dambeeyay ku noolaa Nairobi taynooga waran gaar ahaan markaan eegno Islii oo kale xaafadaha kale Soomaalidu ay degan tahay jaanisyo badan oo waxaa jira ayada laftirkooda oo ay dhalinyaradu ku sameeyaan sida goobaha ganacsiyada markii la fiiriyo haddii ay noqon lahayd dhalinyaro badan oo waxaa jirta ka shaqeeya dukaamada ayagoo kuwaasi haddana wax barta dhalinyaro kale oo waxaa jirta ayagana ka shaqeeya sharqaamada meelaha dawaarka ama loo yaqaan ama dharka lagu tarayo tailorska oo ayaga farsamadooda aad ay u fiican tahay soo jiita dadka la degan ee ajnabiga sida Hindida iyo Kenyaanka ee ku nool Nairobi ku nool farsamadooda aad u soo jiitaan waxa kale oo ku jira dhalinyaro oo aan u koorgalay oo aan aad u wareystay oo aan dib u galay oo sameeya kana shaqeeya maqaayad ama ka waytaro dadka cunada u geeya mustaqbalkana ka leh inay maanta ma aragtay isbedelo wanaagsan sameeyaan ama ay hor u dhaqaaq fiican sameeyaan dhalinyaradaas gabar kamida oo waxa jirto oo ayada sida ay u shaqeynaysay nolol basic wanaagsan ka gaartay kana mid noqotay ma aragtay ururkan aan hadda ku sheegayay Young African Leaders Initiative oo Mareykanka tagtay booqatay oo xagga ka soo qayb gashay kadibna dib u soo noqotoona Mareykan xataa iska dhiibin ayadoo marxaladan adag ku jirto oo ay garatay inay nolosha ku sii wadato aysan dib u fiirinin dhalaalka Mareykanka ay ku soo aragtay
waa tahay waxaad ii sheegtay markaa shaqooyinka inta badan ayagu ay qabtaan dhalinyarada markaan eegno shaqadee ugu badanaa la dhihi karaa dhalinyarada ku nool Nairobi way qabtaan ayaga ama way ka shaqeeyaanba wallaahi markii percentage lagu sameeyo waxaan isdhihi karaa ra'yi ahaanta aniga aan qabo waxay dhalinyarta aad ay ugu wajahan yihiin ama ay shaqooyinka si fiican u hayaan dhalinyarta ka shaqeeya dukaamada ha kala bedelnaado dukaanada ha noqdaan kuwa raashinka lagu gado ha noqdo kuwa kaarbeedyada iyo roogaga iyo joorariyaasha ka wada shaqeeya dhalinta inta badan waxa ay ka shaqeeyaan waa qaybta waxaana keentay community-ga isli ku nool business-kooda wuxuu u badan yahay qaybtaas sidaas darteed bay ayaguna waxay u noqdeen dhalinyarta ugu badan ee qaybaha ka shaqeeya kuwa way jiraan xogahayaal company oo ah kuwa way jiraan travel agency ka shaqeeya kuwa way jiraan ka shaqeeya supermarket-yo laakiin badana wixii markaa bulshadu ay u badan tahay bay dhalintuna u badnaanaysaa inay ka shaqeyso waata iyagoo markaa shaqooyinka qabanaya oo ganacsiyadoodii ama iyaga ha abuurtaan ama shakhsiyaad kale ha u shaqeeyaan wata wax ma bartaan markaad eegto si wanaagsan way iskugu jiraan dhalinyaro waxaa jirta shift ku shaqeeya ma aragtay 8 hore maalinta ah inay shaqeeyaan afarta dambana ay ma aragtay wax bartaan kadibna ay masaajidada xataa kuwa qaar kitaabo u raacdaan marka dhalinyaradu way isugu jirtaa kuwa way dadaalayaan kuwana marxaladda la socdo dalka dhanba lama socdaan jawi kala ayagana u shidan jawi kale ku jiraan waa tahay markaan fiirino dhibaatooyinka inta badan iyaga soo food saara maxaa kamid ah dhibaatooyinka runtii waxaa la dhihi karaa dhalintan super powerka ah markii ay sameeyaan in ay taleefanada gacanta lagu qaato ee lagu hadla mobilada iyo waxyaabaha yaryarka haweenku ay qaataan ama boorsadooda ha ku jirto ama ha noqoto kuwa gacanta ku wata inay ayagu dhac u geystaan ama ay xoogaan kadib waxa marxaladda isbedesha ama soo food saarta bulshada markii ay marxaladaasi aad uga cabato inay askar magaalada timaado markay askar imaado askartu kalama garanayso kan tuuga ah iyo kan caadiga ah iyo kan aanan ahayn waxay danta ku qasbaysaa marka kulligood inay isku wada qabato la wada xiro bangaani la wada kii dambiga geystay iyo kana dambiga geysan sidaas darteed bay saameyn u yeelanaysaa in qofkii dambiga geystay iyo qofkaana dambiga geysanba in inta la wada aruuriyo ma aragtay xabsigii loo geeyo xabsiga markii la geeyo kadib waxay noqonaysaa qof walbaba markaas in dib loo wareysto qofkii sumcad lahaa ama sifo wanaagsan ku dhaqmayay laga garto wajigiisa ama laga fahmo inuusan maandooriyaad isticmaalaynin sharcigiisa la ogaado inuu sharci leeyahay hadduu sharci leeyahayna markaas askarta lagala hadlo laga soo sii daayo kuwa kalena ayagana markaas dalka waxa uga yaala dastuur ahaan in lagu qaado maxkamad lagu soo saaro marka dhibaatada ugu badan ee soo wajahdo waa taa un dhalinyarada marka la eego taa un la eego waxay noqon kartaa askarta markii ay imaado inay isku wada darto mararka qaarkood dhexdooda waxaa ka dhex dhaca dil ayaga ay isku geystaan sababtoo ah waxaad arkaysaa xaafadda islii waxay u kala degan yihiin Soomaalida qayb ama section waxaad arkaysaa section kamid ah inay dhalinyaradu isku bixiyeen super powerka ah section hebel gaar baa la dhahaa section hebelna gaar baa la dhahaa oo iyaga ay la yimaadeen magaca ayaga magaca ay la yimaadeen marka kuwa ayaga dhexdooda kamid ah isku dayaya inay wax kala qaataan markay ayaga wax kala qaataan ayaga isku soo cabanaya dhahaya groupkeeni qof kamid ah aad wax naga qaadatay marka waxa imaanaysa inay ayaga midiyihii iyo baangadihii wixii ay wateen inay inta isku hor yimaadaan isla dhacaan kadibna isku dilaan alxamdulillah waayadan siday wacyigelinta u bilaabatay ee dalka looga bilaabay in la wacyigeliyo ha noqoto culimada Soomaaliyeed oo door fiican ka qaateen ganacsatada Soomaaliyeed ee community sleep business oo ayagana laftirkooda qayb wanaagsan ka qaateen iyo anagoo aan wacyigelin badan sameeyno dhalinyarta kala dhex galnay oo ayaga laftirkooda xataa kuwa qaar ay bilaabeen inay fanka ku biiraan si ay uga baxaan ma aragtay marxaladii ay ku jireen kuwa qaar sportiga ay ku biiraan markii islii ay ku soo badatay garoomada yaryar ee cooska la fidanayay lagu ciyaaro lagu mashquuliyo inay sportiska ay bilaabaan marxaladda sidii hore maanta way ka sii roonaanaysaa iyo isbedel baa muuqda waa tahay markaan eegno dhalinyaro fara badan ayaa ku nool magaalada Nairobi ee dalkan Kenya isli iyo xaafadaha kale Soomaalida ay degtaba sanado badan ay degan yihiin guud ahaan markaad eegto waxbarashadooda barka waran waxbarashada wallahi labadan bari waxay noqonaysaa boqolkiiba
toddobaatan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka aflaxa iskuulaadka ku yaala Islii oo ay uga badan yihiin macaahidda ka baxa sida hadda Atlas College macad aad u qiimo badan intaasoo arday sanadkiiba soo saara ah sida Moya macadyadu way badan yihiin Soomaalida ka soo baxa oo ma aragtay waxbarashada tayada leh siiya aadna iskugu taxlujiya sidii ay heer basicooda koowaad intay ka dhisaan ay ma aragtay u gaarsiiyaan si wanaagsan inay hadhow berri u tarjumaan ama ay u qaataan sifahoodii wanaagsaneed ay uga qayb galaan berri mustaqbalka ay leeyihiin marka la joogo oo kale Soomaaliya waxaa inta badan la sheegaa waxbarashada dhanka gabdhaha iyo wiilasha marka la eego in marka wiilasha ay ku badan yihiin oo gabdhihii waalidkii uusan waxbarashadii u direen inkastoo dhawaanahan aysan sida ahayn Nairobi markaan ka eegno gabdhaha iyo wiilasha dhanka waxbarashada yaa ku badan wallahi taasi adduunka dhan ay maanta saameysay waxaan dhihi lahaa ragga Soomaaliyeed haddaysan dib u guranin oo ay marxaladooda bedelin dadweynaha ku soo socdo waayo waagii hore marxaladii markii dawladii Soomaaliya ay ma aragtay burburtay kadib waxa la arki jiray inay haweenku aad u cadaadiyaan ama gabdhaha Soomaaliyeed aad loo cadaadiyo laguna cadaadiyo inay guriga joogto ee wiilka walaalkeed waxna u dhaqdo waxna u kariso laakiin maanta marxaladu taa way ka dugan tahay waxa arkaynaa gabdho badan oo Soomaaliyeed oo mustaqbal wanaagsan leh oo ma aragtay wax bartay adduunka hadii ay ahaan lahayd maanta adduunyada meel kasta hadaa tagto hal midaan rabaa farxi inaan ku sheego waxaad arkaysaa meel walbo la tago dhalinyarta Soomaaliyeed qaasatan wiilasha unbaa waxaa laga sheegaa dibadana inay gaangirista ku noqdaan dalkan dhexdiisa aan joognana inay super power ku noqdaan laakiin gabdho wali lama sheegin gaangirista noqdeen ama super power noqdeen qaybtaasi waxaan u maleynayaa inaan aad uga taageerayo gabdhaha inay isbedel wanaagsan sameeyeen oo ay maanta ma aragtay ay ku sii subqayaan inay horumar iyo waxbarasho wanaagsan ay sameeyaan waxaana la dhihi karaa markii majority ahaan la qiimeeyo inta dhigata iskuulaadka xagga wiilasha iyo gabdhaha waxaa la dhihi karaa 80% 90% gabdhaha wax barta meeshii shalay Soomaaliya ay wax ka baranayeen wiilasha ayaga ku badan taasina waxaa keenaysa isbedelka cimilada ee dalkan isbedelka cimiladiisa waxaa kamid ah Soomaalida markii ay timid waxay la qabsatay dalkan dadka ku nool sida ay u dhaqmaan shalay gabadha Soomaaliyeed markii ay joogtay Soomaaliya fursad maysan helayn guriga wax yaala qof kale oo ka qabto ama qof kale uu ka saacido laakiin halkaan markii la yimid waxa la helay qof ka saacida dhanka shaqada maadaama gabadhii hawshii shalay ee guriga lagu mashquulinayay laga helay qof ka saacida oo jaanis ay u heshay inay firaaqo hesho firaaqadeedii way ka fiican tahay wiilasha Soomaaliyeed oo way ka qabataa xataa waxaa jirto ilmo badan oo markaad guriyaha ku booqato ama aad eegto ee ku tartamaya anaa shalay kaalintana kaaga hormaray maantana anaa kaaga hormaraya ee gabdhihii ku faanayo hamila leh himilo wanaagsan leh hiigsi wanaagsan ku sii socdo marka waxaan dhihi karaa gabdhaha Soomaaliyeed maanta waxay qaadeen wado wanaagsan waxa u iftiimaya hiigsi himilo wanaagsan leh ee curtoon kana wanaagsan xagga dhalinta mustaqbalka ee wiilasha ay hiigsanayaan waa tahay markaan eegno dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan aan joogno iyagu ku nool ma is caawiyaan ma isaga dhow yihiin dadka kale wallahi taas waa point muhiim ah oo in laga hadlo baahan markii dalka la joogo dhalinyaradu waxa dareemaysaa inay sifo qabiil ama group isu kala baxaan laakiin markii dalkan yimaadaan marxaladda baa ka dhigta dad walaalo ah oo ma aragtay qayb iskugu keenta sida hadda marxaladda deegaanka oo kale qofka haduusan la nooleen familkiisa guri bay wada kristaan guri bay wada degaan gurigaas ay qolkooda degaan qolkaas waxa ku midoobaysa arkaysa labadii jifo ama labadii qolo Soomaaliya isku dagaalsanayd ayuu hal sariir isla jiifa hal sariir ka soo wada kacaya hal sariir ma aragtay hal saxan wax ku wada cunaya marka way ka dugan tahay sifihii shalay ay marxaladda Soomaaliya ay ku hayeen iyo dhaqankiisa fihii maanta way kaga wanaagsan tahay oo waxaad arkaysaa qofkii daruurtaana qasbaysa haduusan kaligiis iska bixin karin cunada iyo guriga iyo aqalka iyo hoyga haduusan asaga iska bixin karin waxa danta ku qasbaysa kan midibka la seeganaya ama ha noqdo ninka aabihii dilay ama ha noqdo ninka hooyadii dilay waxba kama gelin wuxuu fiirinayaa dhaqaalaha kaga aadan xagga iyaga uu siinay maalinka si wanaagsan sidoo dib ugu fakaro oo noloshiisa dib u difaaco waa tahay markaan fiirino dal oo dalkoodii
ayaan ahayn bay dhalinyaradu ku nool yihiin oo la jooga ma la kulmaan wax markaa faquuqa ama maxay heetoy ay takoorayaan dadka wadankan iskale oo kale dhibaato taa ma jirtaa wallaahi Soomaalida timaada Kenya ani waxaan dhihi karaa meel uga fursad wanaagsan ee dalkana oo ay imaan lahaayeen ma jirto Kenya waxa la yiraahdaa waa Muqdisho labaad waayo shacbiyada Kenya umad waliba markay wax barato waxaad ogaanaysaa inay yeelanayso la dhaqan iyo hab wanaagsan umada loo la dhaqmi karo waxa taa keenaysa umadii wax bay baratay la dhaqanka bulshada ay taqaana waa dad horumaray hadda markaad Ethiopia tagto waxaad arkaysaa faquuq aad u weyn oo aanan weligeed dhicin South Africa kale waaba lagu jinsi soocaya laakiin Kenya waxaad u malaysaa inaad dalkaagii hooyo joogto kale oo aan dhibaato jirin waxaad arkaysaa dadkii shacbiyada Kenya ahaa ee jinsiga lahaa ee ku dhashay markuu halka askari kaaga hor yimaado asaga ka naxay ku dhahaya qaybta askari baa jooga qaybta dhibaato waxa lagu sameeyaa noocan isagii baa ku sheegaya meesha kuwa kale iyaga ka dilayaan oo askarta ka dhicinayaan kuwan askartoodiina waa kuwa la macaamili karo aad u wanaagsan oo akhlaaqiyad leh shacabkoodiina waa shacab aanan la heli karin xaqiiqdu waxaan ku tilmaami karaa hadduu Ilaahay siin lahaa shahaadada ama uu islaam ka dhigi lahaa ayaga jannada ugu hormari lahaa ummadda Kenya ku nool sida ay u akhlaaq wanaagsan yihiin sida ay u nabad jecel yihiin waa bulshada maanta adduunka la noolaan karo ama la dhexdegi karo waa tahay markaan arrimaha dhalinyarada iyo noloshooda iyo horumarkay sameeyeen iyo caqabadaha soo wajahay halkaan kaga nimaadno waxaan rabaa Cabdiraxmaan in adiga ku soo laabta Nairobi goormee timi qaabkeed ula qabsatay markaa timi nooga sheekay wallahi aniga dhalinyarta ma ihi Nairobi yimid waxaan kamid ahay kuwa loo yimid oo ayaga dadka soo dhaweynayay marka kuwa meeshan ku soo koray ayaan kamid ahay meeshan loo yimid oo ayaga dadka wax ka soo dhaweeyay halkan ku dhalatay si wanaagsan waka waa tahay Nairobi aad ku dhalatay oo ilaa internet kula soo ekaatay noloshaada iyo horumarada aad sameysay laftirkaaga markaan eegno Soomaalida kale timi sidaad ula qabsatay nooga sheekay bal horta aniga waxaan ku soo koray oo ku soo barbaaray halkan la dhaqanka Soomaalida markaan arko laba sifaan ma aragtay ku mideen kara sifo waxaan ku mideen karaa inay dad yihiin wanaagsan la dhaqmi karo oo shacab wanaagsan ay yihiin sifana waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin dad ma aragtay horumarka iyo businesska aad u jecel oo ma aragtay dhanka aad ku dadaala ee horumariya marka shacbiyada dadka labaad ee ku soo xiga maantay nabadda jecel markay qurbaha yimaadaan ma aha markay dalka joogaan markay qurbaha yimaadaan dadka labaad oo lagu tilmaami kara nabadda jecel waay laakiin markii ay Soomaaliya joogaan ma ahan kuwa nabadda jecel ama nabadda ilaaliya waa tahay intii aad Nairobi joogtay aan ku dhaho waad ku dhalatay sidaad ii sheegtayba markaad kor ka eegto dhalinyarada marka la isku soo dubo waxbarashada horumarada ay sameeyeen maxaa ku muuqanay xilligan wallahi waxaan arkay dhalinyaro badan oo ka yimid Soomaaliya markay halkaan yimaadeen waxay sheeganayeen degree marka ay ayaga leeyihiin oo ay kala yimaadeen dalkaas markay halkaan yimaadaan noqda ama class 3 ama class 4 dugsiga hoose looga bilaabo taasoo qasbi karta inuusan dalka maanta dhisnayn uu burbur yahay waxaad dareemaysaa inuu dalka maanta ku jiro marxalad kala guur ah taas darteed bay waxbarashadii saameyn ku yeelatay markuu halka yimaado bay isdhisaan bay isdiyaariyaan bay waxbarashadii la qabsadaan kadibna ayagoo professor ah oo jaamiciyiin ah oo wanaagsan bay dalka ku laabtaan kadibna ay shaqo abuur wanaagsan sameeyaan waa tahay Cabdiraxmaan oo qaybaha dambe barnaamijkeena Maanmir ayaan isla soo gaarnay waxay inta badan dhalinyaradu kugu yeeraan magaca si naxariis leh waxa lagu bixiyay si naxariis leh
magacaas magac dhaxal waaye hadda ka horna waa la i wareystay haddana waxaan jeclaa inaan mar labaad kuu sheego si naxariis leh waxaa la dhihi jiray aabahay waxay ugu baxday magaca aabahay waxa uu ahaa reer Soomaaliya markii qaxi dhacay buu ma aragtay u qaxay magaalada Marko kadib waxaa dhacday abaartii agabar la dhihi jiray Soomaaliya qabsatay abaartii buu wuxuu sameeyay gargaar aad u weyn sidaas darteed dadkii oo magacii aanan garanayn oo ahaa dad iska masaakiima oo magaciisa aqoonin bay nin naxariis leh bay yiraahdeen nin naxariis leh baa halkaa yimid nin naxariista si u socotay baa si naxariis leh isku bedeshay si naxariis loo sidii markaa asaga ku noqday maadaama aabo uu dhintay wiilashiisana aan aniga kamid ahay baan waxaan u bilaabay inaan aniga magacii aabahay dib u qaato ee kadib aan isugu yeero in si naxariis leh aad iyo aad la yiraahdo dhalinyarada qaarkood maxay ku raadaan ambassadorka dhalinyarada si wanaagsan taa waxaa keenaysa sida aan ugu ololeynayo dhalinyarada ama mar walbaba aan ugu tilmaamay inay sifada wanaagsan la qaataan taasoo aan uga soo horjeedo odayaasha halbeega inoo isticmaalaan waayo odayaashu waxay yiraahdaan waxaad tihiin dhalinta mustaqbalka berri dhalinta mustaqbalka berri markii lagu yiraahdo hadda farxii waxa laga yaabaa inay tahay age-ka 18 ilaa 25 inay u dhaxayso markaad soo qabato 30 sano ku darso farxii waxay noqonaysaa ama hooyo ama ayeeyay noqonaysaa dhalin marka waa ka baxaysaa marka odayaasha ayada siyaasadii u ordaya si aysan dhalintii ugu cariirinin bay waxay leeyihiin dhalinta mustaqbalka marka berri baa lagu dhigayaa waxa la diidan yahay inaan maanta ku caburinin siyaasadda sidaas darteed waxaan ku yiri annaga dhalinta mustaqbalka berri ma nihin dhalinta mustaqbalka maanta annaga taagana intaad yar tahay baa la rabaa inaad wax qabsatid marka dhalinta mustaqbalka berri annaga ma nihin dhalinta mustaqbalka berri waxa ah jiilka naga dambeeya ee annagana soo gaaraya marka u doodistii dhalinyaradii dhalinta u doodistoodii baa ma aragtay iyo shaqayntii aan la wada shaqaynayay qolooyinkan kala duwan baa waxa la igu yiri youth ambassador waa tahay gabagabada barnaamijkeena ayaan soo gaarnay fariinta ugu dambeysay aad diraysaa maxay tahay Cabdiraxmaan wallahi waxaan dhihi karaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri shan ka faa'iideyso intaysan shanta kale iman firaaqada ka faa'iideyso intuusan ciriiriga iman caafimaadka ka faa'iideyso intuusan cudurka iman hantida ka faa'iideyso intaysan faqiirtinimada iman marka waxaan leeyahay marka dhalinta ha ka faa'iideystaan intaysan duqnimada u iman maanta dhalinyaro yihiin wax kastay qabsan karaan waxbarashada ay si fiican uga qayb qaadan karaan alla ka cabsigay uga dhawaan karaan waxaan leeyahay mustaqbal wanaagsan baa leedihiin adduunka maanta wuu isbedelayaa dalka maanta dal walba aad tagto waxaad arkaysaa dhalin baa hogaaminaysa dhalin baa horiyaal u ah waxaan leeyahay dhalinta ayaga ha isbedelaan sifada wanaagsanna ha ka faa'iideystaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhiro ugu gargaaro ayagana ay ma aragtay u bedelaan haddii ay noqon lahayd dalkoodii hooyo iyo haddii ay noqon lahayd waddankan lagu soo dhaweeyay cid u diidaysa ma leh inay kaalin wanaagsan ka qaataan inay kaalin wanaagsan kaga soo baxaan waad aragtaa hadda Canada iyo Mareykanka isbedelada ka socda dhalinyaro yar oo weligood hore u dhicin oo islaamnimo loo fuquuqi jiray baa hadda hogaankii wax ka haya taasoo isbedel ku keenaysa qofka shacbiyadiisa wanaagsan iyo hamiga wanaagsan uu leeyahay the same Kenya way ka sii fiican tahay wayna u soo dhaweynaysaa dhalinyarada qofkii fursad wanaagsan ka qaata way u soo dhaweynaysaa wayna la jeceshahay inay dadka yimaadeen wax la qabsadaan inkastoo Soomaalida aad ay u amaantay oo ay tahay dad jecel fursad ganacsi ayagana waxaan leeyahay si fiican ha uga qayb qaataan inta hawada daawanaysa adiga mudan guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Maanmiir oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee RTN uu ku leeyahay magaalada Nairobi anigoo Farxiye Cabdalla Muumina ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka igala qayb galay Cabdiraxmaan Nuur oo loo yaqaano si naxariis leh waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale Saamahad iyo Mooriin oo dhanka farsamada barnaamijka ka hagayay intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo